wadamada ay ku nool yihiin gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool halkan dalka Norway dhibaatooyin aad u badan bay kala kulmaan dawladda marka sababahana dhowr qaybood baan u kala qaadano si fikirkayga qayb waxa weeyaan waa xagga ka haysata aqoon darrada xagga luqadda oo dadkii qofka daadan fahmayn way dhibaato waddanad ku nooshahay oo doonaysa inaad ku sii noolaato muddada inta ka hadhay haddana aad luqaddii fahmayn oo base wanaagsan oo aad danahaaga badan ku dhamaysan karto aad warqadaha ay ku soo diraan waxyaabo badan dawladdu waa ilaa qof waxa tahay waddan qaxooti ku ah ay xeerar badan ma ogtahay waddanku process badan qofku maraya markuu qofka qaxooti yahay shirkadaad la xiriiraysaa warqada ku soo diraya marka qofku inuu luqad ahaan basic dhisan yahay oo ma ogtahay ilaa uu fahmi karayo uu qori karayo aqri karayo oo ilaahay uu ku ron yahay maxaan ku oran jiray uu heer wanaagsan ka gaar xagga luqadda marka dhibaatooyinka markaad eegtid xagga luqadda aad bay Soomaalidu ugu liitaan waxaa jira bulsho ama dhalinyar isugu jirta rag iyo dumarba juhdi u geliyay inay luqadda si fiican bartaan oo maanta turjumaanka ah oo door weyn fiican ka qaatay isfahanka labada bulshada iyo dawladda ka dhaxeeya laakiin haddana waxaad moodaa in bulshadu aad uga gaabanayso xaggii looga baahnaa dhibaatooyin badan baa ku dhaca bulshada oo ay qaar iyagu naftooda iyagu mas'uul ka yihiin iyo qaar xagga dawladda uga yimaada sida media oo sometimes mararka qaarkood media uu dacayada ka sameeyo bulshada Soomaaliyeed ama warar aan jirin oo kotorkuteen oo ay jaraa'idada ku soo qoraan oo bulshada looga hadlayo nasiib darro waxaana waddankan aan ku noolahay ka jirin urur u dooda xuquuqda bulshada Soomaaliyeed oo ka qaada culayska kaga yimaada xagga dawladda ama media urur way jiraan urur ma jiro idima oranayo urur way jiraan laakiin ururadu waxay u jiraan hab beeleed ama hab intii isfahanta مثلا dad baa intay isu yimaadaan ay dani badaysaa inay urur wax sameeyaan urur bay sameysanayaan laakiin ururkaasi uma adeegayo bulshadii ay matalayeen marka ururadu aad bay u badan yihiin ilaa 150 urur ay Soomaali leedahay baa ku jira waddankan run ahaantii laakiin weli lama hayo urur bulshada culayska haysta ee dhinaca dawladda ah ka fududeeya ama u daneeya lama hayo weli oo waxaad ka garan karaysaa media mar walba wuxuu ka hadlaa bulshada Soomaaliyeed inay tahay bulsho aad u liidata integrating ama dhaxgal bulsho aan sameyn luqadaan ku fiicnayn ana shaqaysan oo yukseen badan yani yukseen waxa la yiraahdaa qofka markuu يعني wixii aanan ka ahayn daacad ama uu mar walba cudur daar u sheeganayo inay yihiin marka warar hadalla aan aad u qurux badnayn buu media mar walba ka sheega bulshada Soomaaliyeed mana hayno ilaa imika anu ahaanada soo qato waddanka waxaan ku noolahay sanadkii 7 baa imika ii dhamaaday bulshada marka culays weyn baa ka haysta dhinacaan ururada ama xagga dawladda urur maanta caawinaya oo bulshadii dawladda hortagay oo oranaya arrinta dadka bulshada ka hadlaysaan annaga ka mas'uula saad moodaysaan maaha yani dawladdii iyo meediyihii dhex gala oo gaarsiiya heer inay meediyuhu ay ka sii jeestaan bulshada waayo waddanku waxaan ugu leenahay bulsho badan ay ka mid tahay Pakistani Sri Lankas Vietnam dadka ka yimiday iyo dawlado badan oo Carabta ka yimiday iyagana laakiin dadka badan lama hadalhayo oo ma ogtahay lama soo hadal qaado maxaa yeelay waxay leeyihiin community aan badnayn laakiin uu mid ugu weyn yahay oo mid ay ka wada midaysan yihiin oo u hadla oo danahooga ka hadla oo wixii dhibtooda ka hadla oo wixii iyaga xaq ay u leeyihiin u soo qaada iyo waxay bulshada xaq loogu leeyahay ka qaado dawladda u geeya way dawladdu xaq bay shacabku ku leedahay shacabkuna dawladda xaq bay ku leeyihiin laakiin beri waxa dhacday
naag ka shaqaysa xafiisyada dowladda ay bulshada Soomaaliyeed ay badanaa tagaan waa beriyahan waddanka ka cusub bay ahayd kelmad bay aad tiri oo aad u xasuustaa ilaa imika waxay tiri Soomaalidu markay xafiisyada soo galaan markii ay xagga luqadda kelmadihii ay rabtay inay sheegto ama uu sheego kelmadihii as a word kelmadahaan markuu u waayo وعرونيا يحولي هي وحن حقول الله يمسينا يو عرو موجنا أما إنه بوقه يعني معقولة تحسن وحوين ما يترو واحد مدابتي هذا الكي إن نسلف فهمي وينه هذا الكي نسلف فهمي ويني وعرونيا لكن واحد بوينتي وين إلا إمي كان فاهم لا ويقتري سمارده وحي هذه سامر والبا وحي حق ولاده لكن اسمه وديسو وحي يجو دولته حق ولاده حقوقيات بيجرا ما كلا ورا وحي وحا سمي وين سميسا وحي ما سمينيsid sababta aad u sameey weydina ma keenaysid marka lagu weydiino wada cadhoonaysa marka culayso badan noocaaya jira taana waxa sababi karaysa midnimo la'aanta dadku midaysnayn dadku u socda maxaan ku raada qayb oo deegaan aan iraado deegaan u socda qolo walba ay mashquul ku tahay deegaan iyo waxyaabo loo kala iyaga u dhaxeeya sawirkoogu aynan arkayn waxa ka dhacaya agagaarkooga ama bulshada ay nool yihiin say u dhaqmayaan iyo focusku issue sida u haysa iyaga iyagoon dareensanayn oo sidii ay ugu yimaadeen wadankii ay u dhaqmayaan weli oo way dadku ma ogtahay ay weli ay tafafuq iyo ma ogtahay qolada kale ay riixayso ninkii kaliya ay ugu caqliga badnaa ama ugu yara firfircoonana ururka uu sameysanayo inay noqoto urur asaga shakhsiyan u daneysanayo una bulshada ugu daneynin waxa kaloo jira oo culays weyn xagga bulshada ay dawladdu aad ugu dhibaato ku haysa waxa la yiraahdo chat-ka Soomaalidu waxa dhibaatada inta la eeg ilaa taka sanadood ilaa maanta ay u fahmi kari laadahay ama ay u dareemi kari laadahay inay dal iyo dani iyo dad iyo duuni ay waayeen sababta chat-ka iyo weli ilaa imika fahmi kari laayeen uu chat-kuna madax u yahay ama uu mas'uul yani mas'uuliyadda chat-ka la saaray aad bay chat-ka u cunaan maalinta uu chat-ka soo dhici waayo ama uu diyaaradda ama wax ka sii noqdaan ama gaarigii keeni jiray wax ka sii noqdaan ay magaalada oo dhan aad dareemayso dadka xataa isweydiinayaan maanta Soomaalida maxaa ku dhacay oo maanta sidii caadada ma ahayd maaha dadka maxaa dibadda waxa soo baxaya thousands kumanaan kuba soo baxaya oo qaylaad u fadhni jiray oo la arki jiray waxa soo saarna waa chat-ki marka dawladda waddanka ku nool lahay waddanka xeerka xagga dawladda wuxuu uga jiraa daroogo ahaan ay xagga dawladda darooga ay u yaqaaniin ninka lagu qabtana waa ganaax wala ganaaxa qaarna waa lagu xiraa kolba xeerar bay leeyihiin oo iyagu isticmaalaan ay u adeegsadaan balwada nooca ee qaadka loo yaqaan marka bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha aad ka ula haray ee noloshooda baabiyay ee miidiyuhu mar walba u hadalhayo ee suuqii ama horumarkii bulshada ama ha noqoto xag shaqo xag aqooneed ama xag walbo ama xag reer ahaanba ay uga hareen waxa sabab weyn u ah ama uu dhaxal u ah chat-kaasina wuxuu sababay marka dawladdii inay iyagu mar walba isku dhac bulshada gaar ahaan ragga ha u badnaadaan isku dhac badan oo xagga ah isbedelka yuuna jirin oo dawladdu mar walba dawladii ma jirto bulsho dhan oo waddankeedii madangaliye weydiistay inay hoos u dhigto ama ay bulshada kale ka duu ay macogtahay ay ugu duwanaatay tiraado may qoladan waa inaan pressure ka saarnaa ma jirto qoysaska Soomaaliyeed waxaan waan ahaan u soo jeedi lahaa in ay macnaha isku duubnidooda qoys ahaaneed in ay macnaha isheeg xoog saaraan ay macnaha aad iyo aad isku duubnaadaan macnaha waxaan dhihi lahaa
dadka معناها وقلدمان بنو أدنك وقلدمان لبي isla nool la yiri mataqaana wala istaabana mar waa